بس شن يصدر هذا في يبتعي ودير بتاعت وقت من كرتا كندا هالسنة وحلينا هذا exchange. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنو قد دعوة سنية؟ هذا من شيء. ما أنتوا كلوا حوي سبتي أحد؟ عن أصلنا هاي ما كان ما أنتوا كلوا دوبني رالنا نجا هذا فيديو ده وصوب بدينا كومنتي كنا وسقور بدنا نوقف قرا لايك تشير تسبسكرايب كهنجي لوينا عاونا كم كي يكون كلام كده سما شروطه هنجي سبوحية وايش تايم كنا نو إيجا أو ده فيديو كهذا دافنينه si hagar la'aan aan kugu hagar baxnayn oo ugu hagar baxay abbaay sidii doonto ma ahaato waxaan u maleynayaa muuqaalkii hore inaad aad iyo aad ugu raaxaysateen su'aalo badan baad naga soo weydiiseen commentigiina aad baan u akhrisanay waan ka dharagnay markaa waxaan doonaynaa inaan ayadoo faahfaahsan ama aan dul marayno inay eeda khadar inoogu jawaabto markaa inaguna aan dhegaysano weliba de anigu aan dhegaystay ininku ilama joogtaan eedoo dadka salaan mar kale waan idin salaamay anigoo idin leh ummadda Soomaaliyeed waad mahadsantiin horta aad iyo aad u mahadsantiin sida fiican ee noo dhageysateen hadalladayada u dhooxdeen annaguna maanta waxaan jecelahay inaan idinka jawaabno wax kasta oo diyaar u tihiin ama wax kasta oo maqashaan mana rabno inaan idin siino macluumaad qalad ah markii horena idin maanu siinin haddana waxaan idin siin doonaa jawaabo badan oo u baahan tihiin marka hore annagu waxaan nahay dad halkan informationka idin siinaya ما هذا إذن كشقيسانية بنهن وهذا information كإذن سينية وإن كلا صارتان ضد بدن السؤال بدن بين السوي ديين أو أي ربان جواب بدن هنجعل ما أنت إلى هلان تبغى أنت بدن إن جواب بدن سينه أديان أو يكون خنحان أو أي تحب يكون نقدان هندلنا أنا مكله سودو هذا hadalkaada ku haysta waxa jirta inaan adnaad garanayso anigu aan saxiibnimo markuu fiideo daawaday soo wacay wuxuu yiri halkan buu joogaa inanku wuxuu doonayay in walaaladii qof kamid soo kaxeeyo oo ku soo kaxeeyo baasaboor caadi ah ama baasaboor Soomaali ama baasaboor ajnabi ah oo halkan markuu halkan keenayna fiisa u soo saaro station markuu yimaadana hadhow hadii ay isdhiibaan isaga wax saameynaya ku keenayso maxaa looga baahan yahay horta marka hore waxaan rabaa inaan idin sheego su'aalaha badan ee weydiiseen waddankan Canada aan degannahay safaarad Soomaaliyeed ma ku taaqlo Soomaaliya amba Somaliland ba Soomaaliya lama aqoonsana waxay noqotaba Soomaaliya ka bilaabo meeshan waxba kuma lihin marna inana yaqaano waxa kaliya ee lagu yaqaanay ku yimaadaan wax la yiraahdo refugee ay ku yimaadaan badida Soomaalida Soomaalida kale ee timaadaan waxay sitaan baasaboortayaal kale maadaama ay haysato qolada ee nagu xigta Ethiopia kooda haddaad wadatid visit wad helaysaa student wad helaysaa inkastoo studentkii hadda ay adkaatay qoladii hindida ayaa waddankan laga sano ka hor ilaa 50 oo qof baa soo galay oo ku soo galay been shalay toole waxa soo baxay horta way xiran tahay next year baa la furayaa waa run sanadka dambe ayaa la furayaa marka way xiran tahay hadda laakiin markii la furo macluumaad badan iyo socod badan baa imanaya taasi waa taa sidoo carra sheegay wuxuu imanaya ma leh inanka kale waxay ku yimaadeen visitor hadhow toole waxay oran karaan dib baan haysata ma noqon karno inay noqoto sababta aanad ku noqon karay inay tahay wax fiican inay noqoto sheeko fiican hadday noqoto looyaraha halkan jooga waa plan soo dhisan waa la farsamayn karaa infaanto hadalkaada ku haysta aan ka yara dhex galo marka maxaa isaga looga baahan yahay ma inuu lacag dhigo deposit ma intaas uu sameeyo ma akimkiisa lagu xidhayaa maxaa sidoo ma garanaysaa hawsha ku keeni kara wuxuu ku keeni karaa marka uu diray invitation inuu ku yimaadaan visitor koo waa inuu shaqeeyaa laba waa inuu guri u degan yahay oo hadhow dadka u dejinayo uu hayaa labo waa inuu yahay isaga resident amba citizen waa resident Canadian
amba ka kale resident waxa la yiraahdaa Canadian ka hooseeya marka travel document iyo PR card haduu haysto wuu keeni karaa waa invitation wuxuu oranayaa waxaan rabaa inaan keeno walaashay ama walaalkay amba qof ehelkiya waxaan rabaa inay soo visit gareeyaan ama waalidkii waa different waalidkii waxa la yiraahdaa super visa ayaa lagu keenayaa super visa ku imanaya waalidku waa ka duwan yahay qofka kale walaalahana waad keeni kartaa hadday ka yar yihiin 18 sano san mar hore idiin sheegayna qofka business haystana oo lacag haystana wuu iman karaa waxaa jirta looyaro qabta meeshan wax kastaba wuxuu ku xidhan tahay wax sax weeyaan wax beenana maaha looyaro ayaa la qabanaya looyaro ayaa arrimahan oo dhan dhameynaya waxaan kale rabaa inaan sheego arrin aanan hore u sheegin qofka jooga Europe tan kale waa Sweden waa Norway waa Denmark waa Finland waa Europe oo dhan haysta baasaboorka European kaas oo dhan way iman karaan Canada hadday ka yar yihiin 35 sannadood waddankana iman karaan sanad bay ka shaqaysan karaan hadday ka helaanna way bedeli karaan residentka ayaa dalbanaya uma baahna waxba waxay u baahan yihiin in loogu xidho lawyerka u sameeyo work permit 35 years 35 haddaad ka yar tahay ood Europe degantay waad iman kartaa Canada hal sano wax la yiraahdo exchange inaad timaadid waddanka soo bedelatid ka shaqaysid haddii aad kamanigaad u shaqaynaysid ka helana iyaga ku qaabilaya gabadh baaban muxuu ahaa maalin dhaweyd aniga ila soo shan garanayo oo baasaboor Faransiis haysata oo doonaysa halkan intuu maado 7,000 kan baa lagu baasaboor Faransiis haysata 35 may ka yarta 35 waa inaad ka yaraataa كينيا يا كالي أنا دم كينيا معلومات بان إدسينيا هذه واحد سيابنا لقى بعضنا ودي أمريكا هذه عديبة هتانا إن الله يريدين خطه إن الناس في عنا ندي مرينا وهذه قبنية خدمات ويا كاس وخدمات معنوهم قف كي يقولوا فريني هاي إن قف أن هجو وحربا عنو سمين وسمين كراكا كان عنو يدين مكينيا ما هي دك يدين كينيا أنا كلا عدايا هذه كلها جزء أنت كبردي وحوي مقالدي ما كيسوق شو تتبع ما يسوق سوق حيان وان قباء وكله اللي هو الصومالي وفيلم كده والفلسطيني مركو هالكن كانوا
ودي السنة شوفتو دفوسيو واحد جرتو كلام حالة اللهم صل على محمد قبدي airport markii saagu soo gasho biyaar ku heshay soo galaysaa markay timaado maalin labaad 9 lambar ay ku shaqo tagi leeyna way haysataa marna waxa laga siiyaa airportka hadii aan laga siino office-ka tagayna noo dalbanayna isla bil gudaheed shaqadeeda iyada ku xirantay shaqada hadii wax taqaano weyn waxa loo baahan yahay afka very important English daw baantina wadanka timaadin school gala English da barta wadan walba tagaysa weyn la horta English baa kala hagaysa English aad iyo aad bay u kala hagaysaa wax kasta بس أفكار هذا القرشة شغلة تجلسان سد بصص كوراعسة سدك ولا حريرسة. horta u sheega maxaa lahaa wadankan dhibkiisa maaha wadan oo janna maaha may meel boosida adduunka hadii aad wadanka hooyo ka timaado meel ka soo anu ku badan ma soo Canada aad wadan aad iyo aad u qaaliye weeyaan nolosheedu way ka qaalisan tahay even America way ka qaalisan tahay hadda waliba anaga living ka wis bedelay guryaha la degaya waa qaali cuntooyinka qaali marka uma malaynayo ina iga rumaysanaysaa idinka nolol fiican ku nool baan filaya nolol fiican waan ku noolnahay in badan baan meesha joognay laakiin gurigood ku jirtaan idinka iska laleyn kama rabo wax la yiraahdo tax wax la yiraahdo kan warqad banteen warqad laga rabo guriga aad degan aad biyo ma leedin karo koronto ma leedin karo gaas ma leedin karo hadaan way yartahay ayaraad miyaa ku sheego wixii soo waday buu aad ilaqsiisay hadda fiiri hadda roob haduu soo da'o biyaha roobka ka soo da'ayo gurigaaga ku dhacayo biyahaas lacag lagu jarjareenaya bishii inaad bixisid moogta taasi waxa la dhahaa environmental water so you inaad dhiibtid waa lacagta cashuurta oo dawladda oo biyahaas ay galayso meel ay ka hagaajinayaan so Canada waa meel fiican oo qurux badan laakiin waxay u baahan tahay kharash marka imaadinaas dhihin the other thing ay idinka iloobeen inay idin sheegaan arayo markaad group 5 ku timaadid magaalada laazim waa inaad lacag wadatid ijaarkaaga cuntadaada aad ku degtid because qofku ku keenay kama dhiibaya waxaas oo dhan waa inaad adiga iska dhigtaa masuulka ma fahamsiitaasna sidoo sheegay wax weeyaan group 5 markaad ku timaadid group 5 ka wuxuu kugu fududeeyay imitaankiiba uu fududeeyay group 5 ما ku fududayn inaad markaad halkan timaadid hooyaabo ku noqdo kuma noqonayo hooyaabo waa inaad diyaar tahay waa inaad markiiba inta shaqada helaysid inta sagaajinaysid haday u badan tahay qofku wuxuu ku oran karaa ila joog bil intuu ku hagaayo bisha kadib waa inaad shaqada maalin kasta baska qaadataa alla hadii aad la timid lacagna waa too kale laakiin waxaad u baahan tahay inaad kacdid oo kurtid oo saartid hadalka ku haystay waxa ku talay boorka forget hungary gaadsadan iyo sixir barra kana ka cabanaysan hadda reekina dadii yaar guday yar baa joogay hayta xaaji da waxa laga cabanayaa because nolosha ma adkaatay caanihan siisan jirnay $5 hadda waxay maraysaa $7 foodidan siisan jirnay $1 hadda waxay maraysaa $3 gurigii apartmentkii la kiraysan jiray qolku hadda waxa weeyaan 1800 kun iyo 800 waxa lagu kiraysan jiray 500 iyo 600 kun iyo 800 bay maraysaa والله بيه وحي وحلا باسكت راعيس وحو ahaan jiray $1 ka yar hadana wuxuu maraya $4 yaa markaas dhihina waxa u soo socotiin janno meeshaan waxa waaye meel oo haddaad adiga rabto inaad ka soo saartid qof oo horumar gaaray waad ka soo saari kartaa loserna qof oo eberkiisna waa naqan kartaa labadaba meesha way leedahay waa habka adiga meesha u socotid haddaad u socotid bidix to destroy your life ama right ina cidaada in aad wax isku tirtidna waad ku tari kartaa waxaasdunna haweenyan wax oo aad ka yani ku filo in hasdhiin Canada u socdaa raaxa ma jirto adiga kugu jirtaa waxaan idin leenahay mar kale anigii carre subscribe like share travel with Trego wuxuu yiri soo dhawaada bye bye wixii su'aalo ama wixii faahfaahin u baahan tihiin idin ka soo jawaabo noo soo sheega insha Allah anagana wixii idin sameyn karno idin sameyn insha Allah wadin jecelnahay kulligiinaba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan malaynayaa aniguna imika suuqan joognay meel baan ka shopping gareysanay marka waxa jawaabihiin dee qof markuu shaqeeyo waa garan kartaan waa la wada shaqeeyaa
maanta kale waxa weeye sabti axad aan ofnahay aan ofnahay marka maanta kale aan duubnay raalina naga ahaado fiidiyoda waan soo badinna committee-ga noo soo si qurux badan noogu soo qora like-ta share-ta subscribe-ka hanaga ilaawina caawana kunkii iyo kun kale ku darsama shuruudaha naga soo buuxiya watch time-kana noo eega oo dee fiidiyooga ha dhaafinine si hagar la'aan aan kugu hagar baxnay noogu hagar bax waxaan u malaynaya muuqaalkaygana ku raaxaysatay haddii aad ku caajistay muuqaalka xigay inaga isku dub waxaan nagaga tegana haa nabadgelyo fi amaanillah anoo idin leh refujiga halkan ugu fiican kuwa haysta kaarka maya kuwa haysta kaarka meesha qaxootiga 5 group it's the best waxaan leeyahay fi amaanillah meeshaan dhan waxaa waa inta lagu sameeyaa qoryaha lagu hagaajiyaa hadaa samaynaysa lagu baraa actually halaha workshop intana waxaa waa meesha lagu sameeyo dhalooyinka dhammayda u jeedid inta lagu sameeyay culture programs waxaa waaye haba ka imaadid meelahana waa dadka wax lagu baraa meelaha fiiri meesha dadka lagu baro waa inta daarabtay inaad baratid kullum qoryaha sida loo jarjaro waxa weeyaan classes baa lagu qabtaa halkan qoryaha lagu jarjaro qoryaha guriga lagu dhiso amba furniture-ka waa halkan iyadana classes baa lagu qaataa meelaha intana dhalooyinka lagu sameeyaa culture program means marka imaadid meelahan ay kala dhimaan kartaa lagu bari karaa fiiri waxaan dhalooyin fiiri inta lagu sameeyey waxaa mashiinka ka dab ku jiro soo inta soo mashiinka waa ka fi dabka fiiri dabka ka baxay xagga san soo geeska kale aan ka tusay waa ka fiiri dabka meesha lagu buufiyaa dhalada maasha allah heeraa la gaaray horumaraa la gaaray intana caruurta yar matalan haddaa shaqada aadida oo kale caruurta intaa keeni kartaa maakana magaaladana barafka magaalada ka jiro waa kana maxaad ku ogaanaysa inuu ka yimaado Hargeysa wuxuu xiran yahay dabagaab barafkana waa kaa inuu Hargeysa ka yimid maxaad ku ogaanaysaa bal eega macalinka weyn Canadian boy dabagaab uu ku socdaa iyo barafka run ahaantii laakiin ma aha barafku waa loo jeedaa laakiin waa kuleel